بسم الله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد كلمة كوبا إن شاء الله تعالى وحان كجهد ليه بوقا يخلخلكا دتك للحجري Soomaalidu waxay tiraahdaa reer guraraac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaa waxaan rabaa insha Allah taala inaan ku cadeeyo warar la isla dhex marayo oo aan sal iyo raad lahayn in aan waxa ka jira iyo sida ay wax yihiin inaan ku bayaamiyo dadka reer SSC Khaatumo waxaa axdiga ugu qoran ayna ku ballansanaayeen 2 sanadood kadib inay shir isugu yimaadaan ay ku tashanayaan ay kaga baxayaan ku meel gaarnimada ay ugu gudbayaan maamul buuxa shirkaas oo intii SSC Khaatumo ay dhisatay ay isugu imaan lahaayeen waxa la leeyahay garajaamac shirkaas uu diidan yahay shirka ma diidani waan soo dhaweynayaa waa shirkii la sugayay waa shirkii dadkani ay ku tashan lahaayeen waa shirkii ay ku go'aansan lahaayeen meesha ay aadayaan iyo marxaladda ay u gudbayaan oo u cad oo ah maamul buuxa oo iyagu leeyihiin inay samaystaan waxa aan diidanahay waxa weeye waxaan la isla ogeyn aan dhamaystirayn khatar gelinaya wixii dadkani ay lahaayeen ee qiimaha faraha badan ugu fadhiyay dhibka faraha badan loo soo maray dadka badani ay u shahiideen in maanta khalkhal la geliyo oo waxaan la isla hubin iyo waxaan la isla ogeyn iyo waxaan laga tashan lagu dhex tuuro shirka maanta laascaanood la leeyahay waa laga wadaa anigu meel lagaga tashaday ma ogi meel wax la isaka weydiiyey ma joogin meel lagu go'aansaday ma aanan fadhiyin dabcan Soomaaliduna waxay tiraahdaa reer maad haddaan ka hore iyo ka dambe iyo ka dhexe isu baaqin way kala lumaan taasi ma muuqato mana ayan dhicin waana waxa keenay khalkhalka iyo dhibaatada dadkani meesha ay joogaan maantana waxa ay ku soo gaareen midnimo ku timid wada tashi Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad aragto arrin dhammaan weyday ama meesha wax ku jira waxaan ku jirin baa la gelinayaa ama wax ku jira laga saaraya waxaanu leenahay dadkani waxay wax ku yihiin wada tashi bay wax ku dhisteen wada tashi bay kaga gudbi karaan xaaladda ay ku jiraan waxa ay go'aansadaan iyo maamulka ay qaataan baana cid walba ay ku khasbantahay hase yeeshee anigu wixii aan shalay diidanaa ee ahayd tala meel kale la iiga soo raray la igu dhiqi maayo dadkayga loogu talin maayo ee aan 15 sano ka dagaalamayay maanta ma ogolaan karo reer walaalahaya oo dariskayga ah inaan ku sameeyo kamana mid noqon karo warsangeli waa walaalahayo waa dariskayaga dambaanu ka leenahay duruufahayaga isku xidhan uma quudno in aanu niraahno annaga idinka xulanayna idinka yeeranayna idinku talinayna idin joojin mayno dhaqankiina iyo odayaashiina iyo waayeelkiinana waxba weydiin mayno nagama qabato kulama dhici karayno wixii aanu shalay annagu diidanayn inaanu iyaga ku samayno walaalayaalow naga raalli ahaada arrintaasina arrin annaga naga suuragal ah maaha
arrinka la isku maandhaafsan yahay waa intaynaan cid kale ku xadgudbin dembi iyo godob aynu tol berri aynaan ka maarmayn aynaan ku samayn inagu aynu tashanno wax isweydiinno cid ina khasbi kartaa ma jirto waa reality SSC Khaatumo meelna uma socoto meelna ma aadi karayso inagu waxeena aynu si mugla uga tashanno cidda aynu doonayno aynu si mugla ugu tagno ula tashanno kaga helo haa iyo maya haddaynu niraahno waanu isku dhex khaldaynaa warteena khatar galaysa teena dhibaato ku imaanaysa wax ina khasbaya iyo cid gacanta ina maroojin kartaa ma jirtee aynu wada tashan talawiyeera loo dhan yahay dhinacyada laga fadhiyo walaalayaal taasaa ina deeqda taasaa meel ina gaarsiin karaysa tii kale kalaba ee gacanta laynagu maroojinayo laynagu khasbayo haddaydan sidaa maanta yeelin layna leeyahay waxaanu idinla doonaynaa waayeysaan war waxaanu u joognay kun beenood oo noloo sheegay 15 sanaan arrintan daba socday god kasta ay gasho waan garanayaa war waxaan u baqayo waxa weeye SSC Khaatumo in la dibindaabiyeeyo oo god ayan ka soo baxayn bari lagu rido SSC way jiraysaa waynu jiri doontaa insha Allah taala cidna looga baqi maayo cidna loo baryi maayo wabillahi tawfiiq